gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo uu heliyay suduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa gaadhay degmada Warcibraan ee ka tirsan gobolka Togdheer oo kamid ah degmooyinka ugu faca weyn gobolkan Togdheer. safarkan oo ujeedkiisu ahaa kuurgelida xaaladda dad iyo duunyo ee degmada Warcibraan ayaa mas'uuliyiinta waayeelka waxgaradka uqaasha degmadaasi waxay si maamuus iyo maqaam sare leh ugu soo dhaweeyeen degmada Warcibraan. gudoomiye ku-xigeenka iyo suduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta gobolka Togdheer waxaana halkaasi hadalka iska daba qaatay oo ka hadlay isla markaana ka sheekeeyay baahiyaha ay tabayaan iyo sidoo kale biyo ku soo jabay magaalada. mas'uuliyiinta degmada waayeelka waxgaradka uqaasha degmadaasi waxaanu ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha qurba jooga qolqol jooga cid danaynaysa degmada Warcibraan ama ka soo jeeda waxaanu aad uga codsanaynaa inay gurmadka nagala soo qayb galaan. waxaan u direynaa qeyladhaanta koowaad madaxweynaha Muuse Biix Cabdi. waxaan u leenahay madaxweyne sidii aanu halka aanu Warcibraan waad garanaysaa waa meesha aanu ku nidhi Biixi la hadaaf. waxaan aad maanta ku leenahay dib noo soo eeg oo dadkii reer Warcibraan aad ogeyd way dadka halka aad sawirradooda ku iman doonaan iyo fariimahooda ku iman doonaan dib soo eego sida sawirkan ku arki doontaa waa naga dhab maaha dhayalsi iyo iska buuq iyo iska hadal iyo saxaafad meel aanu ku qabanno sidaas naga dhab weeyaan. annagana waxaanu diyaar lanahay inaanu wax qabsano. waxaanu nahay degmadii Warcibraan. degmada waxa ka jirta waxa aanu odayaasha hore ka hadleen dhibaato badan baa ka jirta oo dhulkii wuu go'ay togog buu noqday. anigu waxaan ahay dhererkaygu waa 1.9 dhul baa aniga iga dheer oo aan tiigsadaa dhulkiisa caadiga ahaa marka aan gacanteed tiigsadaa marka dhulka gaadiid baa mara waa waday noo tahay halkaas wada noo ah marka togaga roobka marka ay daan roobka dambe hadii Ilaahay nagu simo waxaanu aaminsanahay inay magaaladu qaadmayso marka insha Allah taala waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha maamulka gobolka Togdheer dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adaha qurba joogta iyo cidii islaamka kalaba in gurmadka loo soo gurmado degmada. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo sidoo kale suduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta gobolka Togdheer waxaana kamid ah hadaladoodii. waxaan joognaa degmada Warcibraan anagoo u kurgelayna xaaladka iyo baahiyaadka ka jira iyo qayladhaan ka soo yeeraysay baryahaba in ay go'doon tahay magaalada Warcibraan. odayaashii iyo maamulkii degmada iyo cuqaashii iyo waxgaradkii dhammaan maanta halka ayay joogaan. warbixinta rasmiga ah iyo maxay hayteenay waxa indhihiina aad ku aragteen ama aad ku arki doontaan sida ay tahay una baahan ka dawlad ahaan iyo ka hay'ad ahaan iyo ka qurba joog ahaan dadka deegaankan ka soo jeeda Warcibraan in si degdeg ah wax looga qabto. halkan oo baaq iyo cabasho nooga timi waxa weeyaan mataqaanaa ay noo yeereen gudida iyo shacabka heer Warcibraan. annaga waxaan soo raacnay waxa weeyaan gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka gobolka annagoo ka jawaabayna waxa weeyaan baahiyaadka ay muwaadiniinta waxa weeyaan mataqaanaa degmadani ay noogu baaqeen. kadib markaan aragnay qiimeynay u kurgalay la soconay waxaanu aragnay baaqa ay soo jeediyeen ama waxa weeyaan cabashada ay soo jeediyeen inay tahay mid macquul ah oo waxa weeyaan mataqaanaa haddaan si degdeg ah looga qabanna ay dhibaato badan ku keeni karto waxa weeyaan mataqaanaa magaalada ku keeni karto. Mahad Ibrahim Aadan Mahad Soomane warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco.